السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى توفيق دادون يتآخر بالله سبحانه وتعالى هنا وافتشيو. إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى ذاتك مسلمين تا ميلك السيتشوغان إن إلهي سبحانه وتعالى لبك يدباتذا ككر قاضه. إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى ذاتك يدنتي أي نجوه الرئي إن الله سبحانه وتعالى لما وذن حريصته إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى إن قلنا مركين لمنه إن الله سبحانه وتعالى ونحريصته أدونكو أيامهن ويدمانيان أفضل بنا وحوق قلب صدي بالله أبال قدي إلهي سبحانه وتعالى أبال قد كقفل بينتو أدونك تشوغي سو سميي إلهي سبحانه وتعالى marka uu la kulmo ayaa lagu abaal marin doonaa wixii uu soo shaqaystay. qofkii xaq soo shaqaystay xaqiisii baa lagu abaal marinayaa. qofkii xaq darro soo shaqaystana xaq darradii baa lagu abaal marinayaa. waxaan arkayay maanta dhan qoraallo la soo dhigayo internetka ama facebooka iyo sawirro lagu faafinayo whatsappyada, laakiin waxaad moodaa dadka inta faraha badani inay aad iyo aad u faraxsan yihiin oo ay u arkaan dhacdadii maanta ka dhacday magaalada Gaalkacyo inay ahayd dhacdo sax ah oo waxa weeye dadkaas ay mudnaayeen in la laayo. dadka qaarkiisna waxay u arkaan inay tahay arrin aan sax ahayn. marka ma xaq darray ahayd mise xaq bay ahayd wixii ninkan lagu dilay? waxaan rabaa su'aashan aan idin weydiinayaa waxa weeye dadku waxay u baahan yihiin ficil kastoo aynu samaynayno, wax kastoo aynu samaynayno, waxaynu u baahannahay inaynu sharciga ilaahay subxaanahu watacaala u eegno. waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aanka kariimka ku leeyahay fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun. dadka ahlu cilmiga ah ee aqoonta leh wax ka weydiiya haddii aydan garanaynin. ilaahay subxaanahu watacaala jalla jalaaluhu, ilaahay subxaanahu watacaala ma ogola wax la yidhaahdo adduunka kan inay fawda ka dhacdo. wax fawda la yidhaahdo inay fawda ka dhacdo ilaahay subxaanahu watacaala adduunka kan ma la jecla. waad maqlaysaan maalin kastaba ilaahay ina abuurtay subxaanahu watacaala qaar baa waxay ku leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala ciise waa ina ilaah. qaar baa ilaahay abuurtay ku been abuuranaya oo le ciise waa ina ilaah. ilaahay subxaanahu watacaala wuu arkaa, wuu eegayaa. ilaahay ina abuurtay baa arkaya oo eegaya dadkan waxa weeye le ciise waa ina ilaah. ilaahay subxaanahu watacaala wuu arkaa, wuu jeedaa. haddana ilaahay subxaanahu watacaala wuu kaadinayaa oo wuu eegayaa bal inay ilaahay subxaanahu watacaala u noqdaan oo toobad keenaan. laakiin maalinta ilaahay subxaanahu watacaala qabto waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala kama fakan karaan. maalinka ilaahay subxaanahu watacaala uu damco inuu ku qabtana cid ka fakan kartaa ma ay jirto. sidaa darteed marka arrimuhu ay galaan dhiig in la daadiyo, waxay u baahan tahay in qofka muslimka ah ee wax ku farxaya waxaan uu ku farxayo inuu ogaado waxani maxay ahaayeen mise xaq darray ahaayeen. waa inaad ogaato waxaan aad ku farxaysaa ma wax saxay ahaayeen oo xaq ah. dadkan la laayay ma xaq baa lagu dilay mise xaq darraa lagu dilay? waa in la helo waxa weeye dad ka hadli kara oo caddayn kara oo waxa weeye sulda leh oo intay soo istaagaan oran kara waxa weeye waxaan aanu samaynay wuxuu ahaa xaq buu ahaa. waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa iyo sunnaha nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa noo xalaaleeyey. sidaasaanna dadkaa ku laynay. haddii maanta la yidhaahdo cid kasta oo khaldanta madaxaha laga guro, gaalo badan baa waddanka joogta. gaalo fara badan baa waddanka joogta, dad fara badan oo waxa weeye marka la hadlayo waxa weeye gaalnimadoodu ay caddahay. maalan qofka ilaahay subxaanahu watacaala caaya waa gaal.
qofka ilaahay subxaana wa tacaala caaya waa gaal qofka diinta caaya waa gaal haddana waxa weeye qof kasta oo suuqa maraya ayaa suldadii fulinta ah oo fulinayoo dilaya maalan anoo suuqa iska maraya waxaan arkay nin diinta caynaya ma waxaa ii bannaan aniga shakhsiyan ninkayga halkan suuqa jooga intaan seef soo qaato inaan madax ka gooyo waa su-aal u baahan in aynu fahanno isweydiino waxa weeye qof diinta caayay baan arkay suuqaan marayay waxaan rabnaa inaan kala faa'iidsano markaan hadlayno waxaan rabnaa masalada inay noo noqoto wax cilmi iyo aqoon aynu ku helno oo ku kala faa'iidaysano looma baahna fawdo iyo ra'yigaaga diintu ra'yi ma aha qof baa suuqa maraya waxaad aragtay qof waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala wax ka sheegay ama waxaad aragtay qof waxa weeye diinta ilaahay caayay aniga shakhsiyan ma ii bannaan tahay markaa qofka diinta caayay ama ilaahay caayay halkaa aan marayna madaxa kaga gooyo mise waxaa jirta suldo awoodda leh oo loogu talagalay in ay fuliso maxaa loo sameeyey waxa la yidhaahdo maxkamadaha iyo waxa weeye goobaha dadka lagu kala saaro waxaan dhegaystay fiidiyow uu soo duubayo ninkan maanta la dilay oo uu leeyahay anigu nebinimona ma sheeg wuxuu leeyahay anigu nebinimo ma aanan sheegan waa fiidiyowgiisi bay ku jirtaa way duuban tahay wuxuu leeyahay anigu nebinimo ma aanan sheegan nebi muxamedna ma aan ihi waa laygu been abuurtay hadalkiisii oo duuban baan arkayay mar dhaweyto dadka qaarna waxay leeyihin ninkani nebinimuu sheegtay marka kaba soo qaadba inuu yidhaahdo nebi baan ah kaba soo qaadba inuu yidhaahdo nebi baan ahay haddii uu yidhaahdo nebi baan ahay waxa weeye dadka suuqa wada maraya oo dhan ma inay kurka ka wada gooyaanba mise dadka suldada iyo awoodda leh inay sharciga waxa weeye ku fuliyaan maaha fawdo lama doonayo ila fawdadu waxa weeye haddii qof walba la yidhaahdo qofka waxaa sameeya madaxa laga gooyo adduunkan laguma wada noolaan karo dadku qaar badan oo khaldan baa ka buuxa magaalooyinka qaar fara badan oo falal xun ku kacay baa ka buuxa qaar fara badan oo ilaahay subxaana wa tacaala ku kufriyay baa jooga haddii la yidhahdo qof kastaba waxa weeye madaxa laga gooyo ha la dilo waxaan filayaa dee waxaa ka horeysa dadka kan in diinta loo bayaamiyo xaqa loo bayaamiyo maxkamadda lagu oogo waxa weeye la fahansiiyo waxaan ay galeen waxa ay yihiin inay gaalnimo tahay inay diinta kaga baxayaan marka la fahansiiyo waxa weeye maxkamadda sharciga markay xukunka rido xukunkaas marka in loo hogaansamo marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ama dadka aqoonta leh ama cilmiga leh waxaan aynu sameynayno waxaynu u baahannahay xujo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa inaynu ka helno ma aha wax kasta oo waxa weeye la fulinayaa in ay noqdaan wax sahlan dhiiguna waa waxyaalaha waxa weeye marka ilaahay subxaanahu wa tacaala la hor istaago maalinta qiyaame marka mataqaanaa xuquuqda bini aadamka waxyaalaha loogu hor fulinaya waxaa ka mid ah addimaa dhiigga ugu horeeya marka dhiiggaas ma aha ha ku farxin cid la dilay ilaa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa uga helayso waxa weeye xujo cad maahaane qof la dilay ha ku farxin oo ha ku qoslin ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiis maalinta la taagan yahay inaad xujo ka haysato maahaane hadalkaasi ma hadal xun baa anugu cidna difaaci maayo qoladana difaaci maayo kana difaaci maayo laakiin waxaan idiin sheegayaa ilaahay hortiis markaynu istaagno rabbi subxaanahu wa tacaala hortiisa waxaan leeyahay waxaa dhintay dhowr iyo 20 qof dhowr iyo 20 qof ee dhintay ee la laayay ilaahay hortiis waa inaad u heshaa xujo ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiis waa inaad u heshaa xujo xujadaadu ay noqotaa xujo aad berri ka maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala la hortagto marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedu
waxyaalahan aynu samaynayno waxaynu u baahannahay inaynu aad iyo aad isaga dhowrno waxaynu u baahannahay dadka suldada iyo awoodda u leh in waxa weeye iyaga loo gudbiyo wixii faldambiyeed ah ma aha shakhsi kasta inuu dambiga isagu fuliyo oo uu noqdo waxa weeye maxkamaddii fulinaysay